السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسر دوّا برنامج كأني سراع في سوماليغا وأنت بدن أعلى بقى وقبرتين إن أنا دي كسر باهنه أما إيدي كسر تبينه كان كنا عالمي هي سومالي كنا marka ugu horeysa waxaan ka cudur daaranayaa waxoogaa duray aad u adag bay hayeen marka hadii codkayga fahmi weydaan ama aan yara gabgableeyo waxoogaa iska dulqaata daaduna iska sii socota xitaa aragii waraaqahu waa iska yar adagii dhid badan haday igu aragtaan raalli hada waxa aynu wadaynaa arbacadii dhaweyto de barnaamijkii ciidda salaamaha ayaynu salaasadii habeennimadii galno arbacadii dhaweyto sumeynaan niman arbacadii ka sii horeysay waxa aynu wadnay erayo isku xaafada ama Soomaalidu sida ay wada fahmaan waxa aynu markaas sii wadaynaa aqoonta af Soomaaligu maaha sidaasaan u aqaanaa wax waliba magac bay leeyihiin iyo aqoon bay leeyihiin ama waxa halkoodii ugu tag ama malaha ka daa hamalayn markaad maansa sameynayso haddaad wax malayso waa ku baabaaday sawir maskaxeedkaaga ama humaagan aad daawanaysaa haddii uu malaka galo ku kharib ka had waxa hadii aan siday tahay u gareeyay saasaan u maleynaya humaagaagii dhamaa aad sawiranaysay ee doonaysay inaad runta u bedesho af Soomaali ugu soo bedesho hadduu malaka galay waa ka kac marka waxaan jeclaan lahaa bal maanta in badan waxun bay soo weydiisaan war bal maanta wax noo sheega waxaanu halka ka nilaahay wixii ay fahanteen aynu taleefanka wada wadaagno aqoontiinu hana soo gaadha annagana oo aynu wax walba bal arrimino oo maareyno oo aynu farsamayno waxaan jeclaan lahaa inaynu aqoon wadaag yeelano oo idinkuna waxaan ugu dhantaan noo soo gudbisaan oo idin wuxuuna weydiinin waxa aynu maanta si fiican ugu sii hundadegaynaa barnaamijkeena aan rabo inuu bal hadda u bato inaynu wax isweydiino ama aynu soo su'aalo ama aqoontiina annagana soo gaadho ayaa waxaynu halkii hore aynu ka bilaabaynaa markaad imanka eegta dhageysi iyo maqal iyo dugasho maxay ku kala duwan yihiin dhageysi markaad wax dhageysanayso waan dhageystay waan dhageysanayaa waan maqlay waa faltagay iyo waan dhageystay maxay ku kala duwan yihiin waan maqlayaa waan dhageysanayaa waan duganayaa waan dugtay bal hadda u fiirso maxay ku kala duwan yihiin qof kula hadlaya wuxuu ku yiri may maqlaysaa wuu kula hadlayaa kuma oranaya door may maqlaysaa marka qofka isu muuqataan uu hor joogo may maqlaysaa haddaanu dhagalayn u oran kartid ama aan dhagaa wax ka magaraysaa si ahayn war may dhageysanaysaa weey may maqlaysaa ma oran kartid qof ka dheer may maqlaysaa haa mar hadduu kuuba jawaabay waxaad ogaatay inuu ku maqlayo aribla war ku maqli maayo war ku dhageysan maayo la oran maayo dhageysigu waa marka hadal socda oo aad goobjood ka tahay ama ma garanaysaa cajilad ba ha yiraahdo hadal kuu dhow oo socda aad dhageysanayso maqalkuna waa dhawaaq lagu leeyahay ma maqlaysaa ama aad wal maqlaya rasaas meel shisha ka socota qofku waa maqlaysaa rasaasta war mid dhageysanaysaa rasaasta ma waad maqlaysaa weeyaan sida ay ku kala duwan yihiin dugashadu waa marka aad wax socdo dhageysanayso laakiin aad maanka u sii deynayso oo aad duganayso waxaad duganayso way ka sii culusta bal imika waxaan idhi kugu qoslay kula qoslay
يكو قصلي أنا عسب باكرة أول يراهدو إبك فوكسان بالقف كمركات يراهدو أنت قصو أربحات كو قصشة وان كو قصلي أذيك كو قصلي وي وقصل كي أو طفل كابك الدون يفل جرجار هذي يستبيش بينيه كو قصلي هذا كل هذا وان كو قصلي قف صدحات بان كهلا وان كو قصلي أما وح عاتري أو صدحات بان ليه وح عاتري بان كو قصلي وفالكابكي فالجرجار كمركو رعسينا وعدو كو قصلي بان كورنيا مرة أنت تقص شيء بان نقص له وان كلا قصلي وفالكاب صار مركا كو إيالا مت أفراد بالين يقصوا كردي أو واحد شفت مرة أنا كل قصلين مرة أنا كو قصلين مرة أنا كو قصلين أيات شفته ومرة كو قصلي هذيك حتى لا قصل كي أن كل قصلي لكن هذيك كو قصليه oo qosolkaaga baa ku qoslay anigu iyo ku qoslay wixii arrinkii dhacay kuma qoslina adigaan ku qoslay erayga gabadh hota dam joogtaa leh oo inagu soo kordhisay wareer gol janaa waan ku qoslay waa eray aad u qurux badan qofkii kumaad qoslin kulamaad qoslin lamaad qoslin kumaad qoslin لكن قفك يكون شكين يا قصل أدو شكين كم يجليني إسقى قصل كيسين با شويجي معانا وبعدنا راعي سيد من وان كراعيون ويسدا وان كو قصل بعض الناس إسقى يبغى قصل كيلو حلوجسي ياب يا أمكاك يا قياب يحيى حبايس نجرة نبي قبل أوكينطي راشن waxay tiri markii ugu horeysay waan yaabay muu farxalan wuu ku miisay markii dambu la fiintayna waxay tiri waana makaagay lafihii buu feento waxba buu muu reebin horta markuu hambeyn waayayna way ama kaagtay lafihii markay feenatayna way qayayaabtay waa digrii wuu kala sareeyaa yaxyaxuna waa markan adiga oo intaasiba ay jirto ku yaxyaxo waa ka ugu sareeyay yaxyaxo intaba waxa ka sii sareeyay markaa yaahu qofku markuu yaabo wuxuu yiraahdaa yaa hu mala waa ku cuni doona marka dambe yaahu baad oranaysaa markaa waxaynu soo qaadanaynaa gocasho iyo hibasho qofku markuu wax gocanayo iyo markuu xibanayo wax gocay waa la hibtaa wax dhacay waa la gocdaa wax dhacay waa la hibtaa laakiin hibashadu waa waxaad markaa adigu aan maxaad weli hibanaysaa ma intii yareed aniga waxaad gocanaysaa intii yareed maxay sidee kula xoog badan yihiin hibashada iyo gocashada ereygaadi tiraan weli gocanaya laakiin hibashadii wanaag baa ku jiri karaa gocashadu maayi iilasho iyo ulasho maxay ku kala duwan yihiin ma iilanaysid iyo waan ulanayaa waa erey suugaaneedyada had iyo jeer isbaansooyinkeena kharibay ma ogti ee sida khaladka loo wado iilasho ninka waalidkii ka dacaystaa ma iisho إلهي لبدي بهون حرستاني قاعدين كنا لباتي إلهي أودنا حرست والدينتيني إيلشوا ولشوا كالجعلك إيلشوا كالجعلك أورن ميسيدي
waxaan doonayaa waxaan jecelahay waxaan rabaa waxaan u baahanahay maxay iyana ku kala duwan yihiin cuntaan u baahanahay cuntaan rabaa cuntaan doonayaa cuntaan jecelahay bal kala kaxee adigu oo kala dudu waxaan raadinayaa waxaan doonayaa waxaan rabaa waxaan u baahanahay waxaan jecelay bal isdul taag waxaad iga doonaysaa lacag tusaale waxaad doonaysaa 5 gini baan rabaa aniga iga dooni maysid laakiin waxaad ii sheegtay wixii aad rabtay baahidaadii baad ii sheegtay waad rabtaa aniga iimaad sheegin weli inaad iga rabto laakiin inaad rabtaa un baad sheegtay 5 gini baan doonayaa dee waad doonaysaa inaad adigu doonaysaa ad ii sheegtay laakiin inaad aniga iga doonaysa imaad sheegin 5 gini baan jecelay dee inaad jeceshahay baad ii sheegtay inaad adigu doonayso iyo inaad rabto kumaan darin 5 gini baan u baahanahay baahidaadii baad markaa sheegtay laakiin aniga igamaad sheegin sidaad u kala saaraysaa markaa intaa tusaale aan ku siiyey ma ku kala saartay bal taa isweydiiya waa ereyada istiltaaga leh adalaxiinku ka dhigay waxaa digaaguhu ka dhigay cardaduuq buu ka dhigay wuu cardaduuq eber buu ka dhigay digadu ka dhigay wuu burburiyey wuu halleeyey askaxuu ka dhigay sidee baad u kala saari kartaa adalaxiin digaaguhu ka dhigay cardaadiq eber digada burburiyey alalaxiinkuu ka dhigay wuu yaryareeyey baaba buu meeshaa ka dhigay laakiin waxbaa sii jira alalaxiin wax physically wuu bedelay marka wax yani dul ahaan wuu bedelay laakiin waxa yaala raadkoodii alalaxiinkuu ka dhigay wallaahi quraaradii buu alalaxiinka ka dhigay yani quraaradii buu jabiyo alalaxiinku ka dhigay alaalax ayuu ka wada dhigay wax yar buu googooyey yani ayuu ka wada dhigay alalaxiinka hal iyo jeer galaaska iyo waxyaabaha jabaan la yidhahdo alalaxiin buu ka dhigay ee burbura digaagaho uu ka dhigay waa digadiioo kale digada iyo digaaguhu waa isku mid waa jamac iyo keli sida digadoo kaluu ka dhigay uu ridqay cardaadiqu waa waxaad cantatowsho eber maba taallaba eber xabadiba wixii kama taallo burburiyey physically wuu si kale u duwayey wuu burburiyey daar la dumiyey oo kale wuu burburiyey wuu halleeyey wuu qoomay askaxeeduu qaaday nuuxnuuxsi buu u diiday saasay ku kala duwan yihin horta halaan hal buraanbur maxay ku kala duwan yihin halaan halku horta muxuu yahay ina cabdullah xasan waa kii lahaa walba caynkaaya habluhu saygumay halaan haleen ama waxay ku odhanayaan for example la halaan hal qayrkaa haween waayi maysid heestii magoole cabdiqadir xasan ilahi labada u naxariisteen la halaan hal qayrkaa haween waayi maysid soo halaan hal
وبد دبر قوضي وبد ما سكمل هيدا الدبر قوضي هلان هلاي hablaha yaryar baa berigii hore halaan hali jiray haweenka laftoodu way halaan hali jireen waa ereyada ay ku soo celceliyaan ee halaanka afareyda lagu soo celceliyo ama maasna halaan hal araygu halaan halin ninkoo ilmeeyay laakiin dumarka halaan hala buraanburku waa qayb kamid ah gabayga laakiin qaafiyadooda socotaan ay lahayn قلعدي بقى من لبدي بيت بقى ما بيت يعني قافية دي بقى أنا الله بيت في ولا يه لكن اسمه رأس الله قافية ذاك الدول برام على هذا البحر إن دير قرب maxay ku kala duwan in dheer garatada way kooranayaan ilbax kala jabi il iyo bax waa nin il la baxay waa nin il la baxay muxuu la baxay meel kaluu tagay dhaqankiisan dhaqan ka duwan deegaankiisa deegaan ka duwan buu tago il buu la baxo ishiba wax kala soo aragtay in dheer garad in dheer garad dadkan buu in dheer yani in dheer ayuu dadkan ka garasho badan yahay il dheer garad baa isna jira dadkanu ishooda in dheer ka badan yahay ilbuxu waa in soka il dheer garadku waa ka shisheeya in dheer garadkuna waa garashadii wuu ka garasho badan yahay in dheer garad iyo il dheer garad bay kala yihiin ma kala yaqaanaan ummadda Soomaaliyeed badankeedu labada eray il dheer garad iyo in dheer garad ilbax waa iyo il dheer garad waa ilbuxu ka sii digrii sareeya in dheer garadkuna in dheer buu dhig dadkan ka dheer yu garasho badan yahay dibad bannaan iyo shisheeye dibadyaal bannaanyaal shisheeye kalkaal maxay ku kala duwan yihiin iyaguna dibad iyo bannaan dibadii buu qabtay ninkaas waa ninka bannaan ku jira hebel mee uu baxo bannaan ku baxay hebel mee uu baxo dibadda u baxay maxay kala yihiin dibad iyo bannaan bannaan iyo dibad waad kala taqaanaa dee ma af Soomaali badan uma baahna laakiin marka aad isku daydo waxaad u hindadegtaa dibad bannaan bannaanku waa meesha bannaan oo aan xitaa dhir lahayn baa la dhahaa bannaan laakiin bannaankuu baxay marka lagu leeyahay wuxuu u baxay bannaanka waxa weeyaan meel aan dhisma ahayn dhismahanuu ka baxay oo meel aan dhisma ahayn buu joogaa weeye bannaankii maaha ayga ahaa guriganuu ka baxay dee 4 gidaar iyo saqafkanuu ka dhex baxay bannaankuu baxay marka haye dibadduna waa maxay kasi digrii saraysaa doon waxaan jeclaan lahaa injineer Yaafarna wuxuu inoo furayaa telefoonadii imika
bal inaynu isweydiino way iska soconayaan had iyo jeer barnaamijkeena qaybta dambe iyadoo aynu sharxayno had iyo jeer markaan khalqadihii kale hore dib u yiri tijaabiyo waxaan arkay marka qaarkood aanoo eray xiisa la wada ayu telefoon soo ilaaweynaa waana soo xasuusin kartaan haddii ereygaas uu qiimo leeyahay bal marka injineerku haynoo eego telefoonada marka soo gashaana hello salaam calaykum hello salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. علي ولا الله مقعد هل كنت قصة الله يسوع. عبد الحكيم. عبد الحكيم حاجات شوكتها ولا الله. لا يروي هذا. هاي محل قال قريب قال لي عبد الحكيم. محل ما أنت نقول سكرني عبد الحكيم. وحان قبا ان كومنت نديفتو. سودي بقى ولا الله. سؤالنا إن نديفتو. ديار. commentigeed waxay tahay afka Soomaaliga marka la sameeynayo continuous wax continuous ah waana waxa ka dhacaya waxa lagu daraa ficilka oo adiga hadda adigu naftaada sheegtay hayn marka haddaan rabo inaan iraahdo waxbaan cabayaa waxay noqonaysaa ficilkii oo lagu daray ereyga hayn oo waxaas haddan hayaa dad badan baa ugu raacsaneen laakiin waxay noqonaysaa waxaan hadda hayaa waxaan cuna hayaa waxaan arka hayaa marka waa haddaad rabto afka Soomaaliga inaad samaysid wax hadda dhacaya waa inaad ku dartaa hayn haddii aad rabtid inaad samaysid wax mustaqbalka dhici doona waxay noqonaysaa ficilkii oo lagu daray doonid waxaan cuni doonaa waxaan cabbi doonaa marka waa ereyga doonid wuxuu ka dhigayaa ficilka wax dhici doona mustaqbalka marka aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee yaqaana haddaba su-aasheedu waxay tahay ee yaqaana afka Soomaaliga iyo naxwihiisa ma jira qof ii sheegi karaa adigu naftaada sida loo sameeyo wixii dhacay because waxa dhacay for example waxaad leedahay waxaan cunay cunidii iyo ayba la isku daray marka aydaas maxay tahay aaskeeda sida maaragta hayaa iyo doonaya ay waxa dhacaya iyo waxa mustaqbalka dhici doona ay u sameeyaan wixii dhacay ereyga ay maxay tahay qofkii garanaya ama adigu haddaad iga jawaabi karto waxa uu yahay aaskiisa ereygaas because ay wax macnayn sameynaysa malaha cunay hadday dilay marka intaas aan uga baxay aad baan umahadsantahay والسؤال آد وقيمة بدل عبد الرحمن بقول كيف بقول نقعد مع سنتي ميل ده كدوني أنا كاجي جوابي والسؤال أنت بدن تتكلم نحوها يدمع إن اسمها إرجعنا اسمها أبحي أنا جو ويعمل نحوها ما جرامك الله يقارنه اسكت حلوت شيء أنا أقولين إن بدن برنامج كم وحن كأيدي warnimiyo ka daaya tagtay joogta timaaday waxaas iyo dhacday war waxa ka daaya oo ereygii la isla qaatay berigii ugu horeysay ee ahaa fal tagay iyo fal jooga iyo fal soo socda oo qaata adiga mid baan kuugu kordhinaya marka aad isticmaashay imika waxaan cunahayaa waxaad halkaa isticmaashay wa iyo haa iyo na wa keliya iyo a iyo xa wax ayay noqotay waxaan waa magacuyaal marka ugu horeysa ahaansho hayaa haddaad xagga dambe ka raacaysana magacuyaal ahaanshuu kaa noqonaya waxaan cuna hayaa hayntii waa magacuyaal lahaansho waxaagii baad cunaysaa waxaana magacuyaal lahaanshaa ku jiro isma qabtaan
sidaa la ajligeed ba af Soomaaliga hayntii laga saaray oo ay lagu daray horta ay noqonaysaa waxaan cunayaa si aanay magaciyaal ahaansho iyo magaciyaal ahaansho malaha halka kama deegin si aanay isugu imanin ahaansho iyo lahaansho oo laga dhigo ahaansho ama lahaansho laga dhigo ayaa horta wax la jaraya waxdii oo waxaad oran kartaa waan cunayaa waxaan cunahayaa heebaa lagu odhanaya markaas waxaan ku uri waar ma cunta raashinkii ma cuntay raashinkii masad xalasa waan cunahayaa waxaan cunahayaa hee waan cunahayaa waa jawaab iyo adoo isiinaya erayo kala gadoonka ahaanshaha iyo lahaanshaha ayaa horta macnuhu waan hayaa waxaad hayso war maxaad haysaa waxba war maxaad haysaa qalin baan hayaa war maxaad haysaa waxbaan qorayaa way kala duwan yihiin lafteeda hayntii horta waxaad hayso iyo waxaad qabanaysay kala yihiin marka waxaan cunahayaa halkaas way ka yara adkaanaysaa taasina waa waxyaabo inta badan la isweydiinayo marka waan cunayaa waan cuna waan waa aniga iyo dhawaaqii magaciyaalka nacdan ba aniga ay tilmaamaysaa waa cunaa dad baa yidhahda waa cunaa nacdii xaggii ka geliyeen halka dambe waan cunayaa yaadii bay soo jireen waa cunaa waa dialogue waa cunaa koonfur weeye waa cunaa yaa akhi waa dialogue nacdii xagga ku hore ka geliyeen ayuu yiri xagga dambe ka geliyay mararka qaarkood lahjada ayaad ku wareeraysaa dialogue ayaad ku wareeraysaa haddaba falkii tagay baynu u imanaynaa waa fal tagay fal dhacay dhac iyo tag waa magacyo maxaa lagu daray isla magaciyaa waxaa lagu daray isla ficilkii oo ayay yadaasi kelmad wal oo Soomaaliya oo aan magac ahayn oo ay ugu dambaysaa waa fal tagay oo lab waliba waayo ay kaliya ma raacde inan markay noqoto tayba raacaysa halka aduu ka tiri ayaya waa raacaysa waa labka ee dhadigii tay iyo yabu qaadanaya tay ayaya cuntay cabtay tagtay seexatay maqashay laada ayaa shay isu bedeshay way qashay wuu qalay way qashay wuu maqlay way maqashay laada ayaa dhadiga shay isu bedeshay waa qodob qaadashadii taasi in badan baynu barnaamijka kaga soo sheekayno marka falka tagayna horta waa caynka walaa deyntaasi aqoontaydu aniga ay siisay oo u malayn maayo hayaa iyo doonistu waa baab kale hallo salaamu calaykum telefonkaasi wuu ka go-ay ninka odayga ah markaa horta cabdixakiin nairobi sidaasaan walaalo ku macneeyey waanaad mahadsan tahay hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal magacayga waxa la Ismaaciil Xaashi waxaan ka hadlay dalka Sacuudi Arabiya haye Ismaaciil maxaad nagala qayb qaadanaysaa walaal ninka khabiirka meesha qaadna waxaan weydiin lahaa Soomaaliga uu sheegayo ha laba kelmadood oo gaagaaban ha mid waxa weeye nin baa idaacadda ka warramaya matal wuxuu odhanayaa geel baa halkaa laga qaaday geelaas oo rag iyo naagaba leh haye ninkaasi wuxuu u jeedo af Soomaaliga caynkaas waan weydiin lahaa haye dhowr su'aalood af Soomaaliga lagu soo kordhiyay oo fahmi weynaa jira ha bal horta tabuwa dambaxay damee ninkaasi muxuu u jeedaa isaga weydii isaga soo kan hor fadhiyaan kula hay anigu ma ha ki yiri weydii taas waa yar qalad balay la diniga weydiiso ya anu ma ki yiri baanahay haye te markaas sidaad ka tahay baan ka ahay bal inoo soo ogow oo markaad noo sheegtide geela rag iyo naagaba leh ha taag maal maqale balada de ninkii aad ka soo maqashay ama meeshii bal inoo soo weydiiyo de amba sidaad u weersantay baan u weersanahay markaas aad inoo sheegi talabaad nin baa wuxuu odhanayaa ha halkaa waxaa tagay laba qofood haye labadaa qofnoodna waan saari waay labada qofood ma naag iyo ninba ma laba ninba ma laba naagoodba ya
dee taana bal soo weydii ninka odayga ah oo bal wixii aad dee jawaab soo hesho nagu soo kordhi dee anigu ninka telefoonka ka hadlaya telefoonka ku hor qoran un baan arkaye isagiiyo maxay kaayeen iyo adigu dee miyaan idhi anigu laba qofood mise waxaad iga maqashay geel rag yaa naaga wala adiga ilaa telefishinkii waa 70 telefishin bay Soomaalidu leedahay ha markaa wixii telefishin ka soo baxaba adiga masuu ka mid ba ninkan odayga ah telefoonka ku jira imanka ma isagaa yidhi ya dee anigii baa kula hadlaayo maan oran baan ku leeyahay waa isagii kala la hadlaysaa haye dee anigu waxaa ma oran mana oranayo manaan oranin oran maayo kumanaan oranin waan idhi daha soo khabiirnimo ma sheega waa inuu fasilaa labada kelmadood geela rag iyo naagaba leh iyo labadan qofood dee geela rag iyo naagaba leh maxaan fasiraa ma geel rag iyo naagaba lama fasiraa ha khayrkee ku badanaye ma fasili karo garan maayo dee wala waa ka dhifay hadlaya ya ballaynka aanaynu ka gudubno khadka saddexaad alo salaamu calaykum haye walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso xaga dheer baa ka soo hadlay xaga dheer xaga dheer maxaad nagala qayb qaadanaysaa waxaan kaala qayb qaadanayaa barnaamijka cusub ee aada waday haye waxaan ku weydiinayaa waxaan ku weydiinayaa ma garate ereyga la yidhaahdo halo dee waan ku maqlayaa waxaad igu tiri waxaan ku weydiinayaa adigun baa dib isu dhegaysanaya balka dhegta igala soco anigu waa subxaanaka ya cadiim waxaan jeclaan lahaa dadku intaanay taleefonka ka khasaarin inay intay telefishinka ka jeestaan ama codka iska gaabiyaan ay ka nagala socdaan waayo dee in badan bay isu dhexeeya markuu halka yani masaafada intaa leeg markaa had iyo jeer kan dhigta nagala socda walaalayaal waa mahadsantihiin taleefonka afraad asalaamu calaykum halow halow asalaamu calaykum halo haye walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma halkaad ka soo hadlaysaa walaal waan ka soo hadlayaa wadanka Holland Holland magaaladee magaalada Rotterdam يا سلام هي مقعقنا ما محي magacayga farxiyo weeye maxaad nagala qayb qaadanaysaa waan kaala qayb qaadanayaa waxaad maqlaysaa dad baa waxay odhanayaan ya 10 caruura waxay odhanayaan ha ilmahayga haye ilmahaana waxaan u naqaanaa ilmaha keliya ha sax miyaanta waa khalad may waa sax ilmahayga markaad tidhaahdo kelina way noqotaa ereygaas jamacna wuu noqdaa صح عندها سنة كويديني ها وعاد يا أبا ما سنت لكن دي مقالة روتردام لا يلاحظوا عاد ما نوتشعل أيوة ما سنتها يقول السلام دمانتو هي أخو السلامي ها أقب كايجي يعني بل هذا خدك شنادة إنه أجنو دبنا إنه يصير قال له هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاقي هلكad kasoo hadlayso walaal waxa la yiraahdaa Burhaan Abdi Fure waxaan ka soo hadlayaa Nairobi Burhaan maxaad naga qayb qaadanaysaa maanta walaal Hello ma maqlaysaa Burhaan waan ku maqlaa adnan ku maqlaa maxaad naga qayb qaadanaysaa salaamaya waa ka qaadnay walaal waa ku salaamaya waxaan aad idinku bogaadinayaa barnaamijkan aad hadiinaysi adigu haye walaal waad mahadsantahay Soomaali danaal dhamaantiin waxaan jeclaan lahaa inaad Soomaali waa ballaaran yahay waana lahjada badan yahay ana inta badan waxaad ka hadashaan af Soomaali gobolada waqooyi bari ilaa waqooyi galbeed
waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo dartaan barnaamijka soomaalida koonfureed iyo xamaraawiga dadkan badan ee raxanweynka marka barnaamijka ballaari soomaaliga oo dhinacyo badan maxaad markaa uga jeedaa walaal ilaa af soomaaligu waa af soomaali aniguna lahjada aan anigu aqaanaa anigu cabdigood ahaantaan aqaanaa waa tii burco ha ka warwareegin waqooyi bari iyo waqooyi ha tegin waa tii reer waqooyigaan ku hadlaa anigu haddii uu jiro nin sidan wax u garanayo oo lahjada kale ku hadlaya dee isna ha yimaado barnaamij afuro anigu shaksi baanay shaksigayganuna wixii aan aqoontayda ahun baan halkan ka odhanayaa markaad leedahay badi miyaa soo bartaa maya badane waxaan ka wadaa markaan kuleeyahay soomaaliga ballaari waxaad barnaamij ku waadinaysaa aad usoo jeedinaysaa waa soomaali weyn oo dhan sida ku qoran shaashada telefishinka waxaa ku qoran israaca af soomaaliga marka soomaalidii maadaama ay badan tahay barnaamijkiina in la ballaariyo si dadka dhan uga wada faa'iidaystaan oo nin walba markaas deegaankiisa iyo lahjadiisa iyo dhaqankiisa uu yaqaano af soomaaliga dhinacyadoo dhan looga wada faa'iidaysto walaal waad mahadsanto waa talo wanaagsan bal waxaad dib imika u eegtaa markii af soomaaliga dowladii siyaad bari la odhan jiray ay joogtay hal buug baa wadanka oo dhan laga wada baran jiray hal buug dowladan oo lacagteedii iyo kharashkeedii iyo shaqaalaheedii iyo wixii leedii baa dialogue samayn kari weyday ma cabdigooda Soomaaliya challenge jooga dialogue samayn kara maya Soomaaligu waa badan yahay balaaran yahay dee ballaarkii qaybtana kaga soo hagaagay anigu waaye waad maasantay waanu qaadanay taladaada walaal waqtiga ay cidhiiriyaya waxaan doonayaa inaan in yar wado markaa aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay waanu qaadanaynaa burhano waanu ka qaadanaynaa bal waxaynu gelaynaa imika neefka marka la qaybinayo neefka marka hore neefka wuxuu noqdaa so iyo saan saantu markay halkaa u hadhaysa socodii baa soo noqota laf iyo lud bay noqotaa socodii waa haragga saanta marka laga saaro wixii kale soo haray ayaa laf iyo lud noqda so la yiraahdo marka hore laftii markaad halkaa dhigto ayaa ludkii laftii dee waa dhuux baa ku jira wax dheeraadoo kale kuma jiraan dhuux baa ku jira lafta af soomaaligaasi waa jiraa dhuuxa iyo inta kale wax la yidhaahdo lafteeda markuu dhuuxu ku jiro waa laf ile dhuux baa ku jira laftu marka aanay dhuuxa lahayn lafta dhuuxa li lafta aan dhuuxa lahayn af Soomaaliga macbayn kala lahayn doona jiir iyo jibaar bay noqotaa jiirkii laba u qaybsama waa in la doonaa waan idin sheegi doonaa laakiin waa homework la idin siinayo jibaadhiina aan halkaa idin yara wada Soomaalidu halkaa ma dhaafto jibaadhiina waxay noqotaa dux iyo dufan dux iyo dufan sii baara halkaa markaynu kaa kaga tagno kiiska garta marka halkaa la keeno ilaahay oo naxariistay markii ugu horeysay anigu ereyadan maqlay waxbaan ku sii darnay marka waa si ballaarnay laakiin ilaahay oo naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariya lahaa يعني دي ريسيرش كان يسجل سوي سمية إما كان وضع لكن وحبان كوسي دري دحي الدفن كمان كوسي دري لفتو أنت كده ما تاي ولا سي ولا سي كلية لكن رحمه الله يسجلها أنت كيس كوح النقطة يا نور يا دقن أنتي ويريد لك حاجة كتير منه نور كي مركب وقول يقان هل كاسوك كهذا يسوي قدي waxay noqonaysaa utuniya ar utuntii waa sii baaraysan arkiina waa sii baaraysan telefoonka labada telefoon ugu dambeeyay qaadayna hadii alla yiraahdo hello salaam alaykum walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal inta kan ba ka soo hadlaya faarax la yiraahdo hayo walaalida dadka waqtiga ay eeriyay ma xad naga qayb qaadanaysa walaal
walaal waa mahadsan tahay barnaamijkaadi aad u qiimo badan weeye oo israaca af Soomaaliga waa barnaamij runtii aad iyo aad ii soo jiitay waana la baahnaa in laga hadlo الله يعيسك الله يعيسك واد ما سنتي والله ما حد يقول سكر laba arrimood baa isu kay raaca adigoo mahadsan mid waxa weeye su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo سوده dadka qaybtooda waxay yiraahdaan ama idaacadaha ama TV-yada inta badan koox wariyayaala iyo koox farda iyo koox ariya way isku khaldaan ها waxaan maqlaysaa koox wariyaal halka maanta isu raacdo kaamirooyinkoodii wata ها kaasi masaxda tawa iga jawaabaysa tan kale tan waxaan jeclahay mustaqbalka inaan qoro book ka hadlaya taariikhda Soomaaliya iyo dhaqankeennii iyo marka arrimahaasina maxaa kale iga siin kartaa labada arrimood baan telefonkayga walaal ayaad qaadanaysaa insha Allah ta'ala imika markuu barnaamijku dhamaado ama waxaad soo gali waxaad si toos ah igala soo xiriiri doontaa haddii la yiraahdo Facebook tago israaca Soomaaliga magaca baan waan ku soo confirm gareynaya message soo raaci inaad tahay Facebook waa israaca Soomaaliga waa israaca Soomaaliga kaasuu niga soo galo ila soo hadal dabeedna waa alxamdulillah ma barnaamijkan barnaamij af Soomaaliga inaad horta muddo lagama hadlin runtiina waan arkay dad iyo badan oo markaad ka hadlayso xogaa wax kugu turturayay marka maadaama TV fadhido waxaan tala kugu sinaya dadka waa iska hadlaan marka cidii wax aqriya wax miskax kugu siyaadinayna waa in laga qaataa cidii kale tan hadda waxa ay ka hadlayaan wax dhaamaha keenan markaas kula doodi karaan marka taas dadku waa u sheegi lahaa waa sax walaal waad maantay walaal isla caawa bay israaca Soomaaliga soo dalbo caawa baynu halka ka sheekaysano wixii talaana waan ku siinaya walaal haye inaadeer waa maantay salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله في كوجود بيجي تصدق دقيقة حل دقيقة ضد بوها يستوقفكم مالكابل هذا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم halo هلو والله الإيد دتشي مقعاقي هل قد كسر الله يسوع calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu أي هل قد كسر الله يسوع والله المقعاقة waxaan kaala soo hadlayaa walaalo kismaayo مقعاق والله magacaygu waa maxamed kismaayo kaala soo hadlaya هاي محل نقل قيب قادر يسمى محمد كسمايو waxaan kaala qayb qaadanayaa walaalo waa barnaamijka barnaamij hadda ka hadlaysaan kaala qayb qaadanayaa wax la mida ma garan هاي ولا السودة barnaamijkaygu walaal waa qoor iyo xero weeye ma garatay ها waa si ay u sheegaysa qoor iyo xeradiina waxa weeye inagu sideen uqda qaadanay maahan ma garan هاي waa diin meelaha iyo meelaha anigu waxaan kaala hadlaya xag diineed ma garan حق ديميلا تلفزيون كيس كان ناقص ولا البلد معناها هو حق دينيد معناها دينها معناها wax قول إيه حر دي قول إيه حر إيه قال لي هذا الدين ما خسايو قوري حري الصومالي ويسي waxayna la weeyday macnaha waa diin la'aan madrab هاي macnaha ereygaagii hore aan fasiraya ereygaagii hore aan fasiraya ahaa macnaha aad naftii iyo dhadigii iyo qoori iyo macnaha dhuuxii wixii aad kala qaadaba macnaha ka fasiraya madrab ها marka walaala taasan kuu fasiray macnaha waxa weeye waa qoori xeray waxay ku weysay diin la'aan madrab ما إيري وناكسن سكلا ينوقا علينا إيري بات كنت آدو وناكسن وحويا وقول إيه حرو برنامج كده مرة صعوك عسان سيفي عنكو قوفة السيرية وايو إيرينا دوني ينادي مكا أدوكو أنا كوفة السيرية سيقو روح بدويا لكن دين مقالو دين مقالو وعوان نمدي بريقي هورا لكن أنا كاقا شاكين دولا حدي الله يلاحظو برنامج كيني ما أنت سلاسو كل ما ضي يافر أي إنجنير كي يوركي ما سوق لا يمركب برنامج كيني وقت بدل قاعد تدوني منه وحن بانا نقول لا ما أنت إنجنير مهدي إنجنير سعيد إنجنير يافرنا عبد جود عبد محمد حسين علي بحر الصومالي كان دمانتين با waxaan marka ugu horeysan u diraya Samiri Iman anigoo ku hadlay magaca ciyaartoyga gobolka Togdheer iyo bahda Somali Channel oo dhan saaxiibkay eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Ismaaciil Jambir Ahmed Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo waxaan leeyahay Ilaahu godka u nuur Ilaahu firdawsagee Ilaahu u naxariiso waxaan idinkaga tagayaa kadaba iyo kulan xiiso leh